bismillaah asxaabta waa in salaamaya arax media waa la kala tegay cabaar baa la kala maqnaa maalmihii ugu dambeeyey hase yeeshee waa soo laabanay insha allah sidaan ku ballannay mar walba waxaan usoo gudbinaynaa walaalaheen bulshada soomaaliyeed wax walba oo markaasi wax laga faa'iideeyo haddaba waxaan bilownay oon dib u bilaabayaa hadduu ilaah kala noqdo barashada luqadda englishka oo ay iga codsadeen asxaab fara badan in aan janaalka kusoo kordhiyo waa tahay maanta waxaan baranaynaa in yar oo kooban hase yeeshee macno badan u sameynayso dadka markaasi seriouska ay ka tahay luqadda englishka inay bartaan amaba jecel inay ku hadlaan afka englishka waxaan maanta baranaynaa sida aad ka warqabtidba luuqad walba waxay leedahay instruction qaab lagu barto laakiin luuqadaha oo dhan waxay iskaga mid ka yihiin inta idin muuqato shantaas waxaan markaa isku dayaynaa maanta inaan fududayno waan idiin sheegno luuqadda inaysan ahayn sida qof walba uu u maleeyo luuqadda marka ayaana waqtiga idinku daalinne let's go and start how the language begins and how the language is taught. So I'm starting by explaining to you the word listening, which means waxa waayo dhegeysi. Let me give you an example. Tusaale kale cunuga markuu 2 sano jiro when he reaches like 2 years wuxuu bilaabayaa inuu hadlo macnaheeda maxay tahay 2 sano oo dhan ayuu dhageystay 2 good years he has been listening to his mother tongue or to his language whichever language he has been. So listeningka waxa waayo dhageysi yeah. So dhageysiga waa waxa ugu horeeyo ee luqadda lagu barto qofka aan wax dhageysanin wax kuma hadli karo qofka aan wax ku hadlinna waxba ma qori karo qofka aan wax qori karinna waxba ma ayraahday waxba ma aqrin kara haddaba waxaan rabaa inaan idin maanta aan halkan ku sharaxno sida 4 step ay isugu xigaan listeningka qofka markuu barto waxa u suuragelayso in uu imaado the second stage which is speaking qofku waa inuu awood markaas u leeyahay luqadda inuu ku hadli karo 2 sano kadib wuxuu bilaabayaa cunuga hooyo aabo which means he has listened enough to the words that he is speaking marka taas waxay ku tusaysaa inuu si enough u dhageystay uu hadda uu awood u leeyahay luqadda inuu ku hadlo waa second stage that is second. Therefore, we're going to next or a third stage, which is reading. Aqrinta waxay timaadaa markii qofku uu wax ku hadli karo. Remember, waxaan ka soo bilownay dhageysiga, waxaan ku xijinay waxa la yiraahdo speaking oo ah hadal. Third waa reading oo ah aqrin. markuu qofka awood u lahaad inuu wax hadlo wuxuu isku dayaa wax inuu aqriyo markuu aqriyo wuxuu imaanayaa last stage but not the least tan ugu dambayso laakiin ma ahan midda ugu qiimaha xun haddaba writingka wuxuu imaadaa markaad wax aqrin kartid sababtoo ah waxaan ognahay qof inuusan wax qori karin uusan soo aqrinin qofka kuma hadli karo wax qofka ma akhrin karo wax uusan ku soo hadlin amaba uusan garanaynin sida lagu dhawaaqo qofka kuma hadli karo waxa uusan dhageysan as you can see. So we have what you call here grammar, that is the one in the middle. So grammarka wuxuu ka mid yahay waa darawalka ama waajihayaha luqad walbo haddii aad rabtid luqadda Germanka inaad baratid if you want to study Somali language, if you want to study Swahili language, if you want to study any other language that you are interested in. Therefore, grammar is the backbone of any language that you want to actually learn. Marka grammarka waa saldhigga luqadda qofka inuu ku barto tusaale waxaa kugu filan grammarka waxay la mid tahay grammar haddii aysan luqadaada lahayn hadalkaada macno ma sameynayo sababtoo ah ma garan kartid wixii shalay ahaa wixii maanta ahaa iyo ereyga sida loo bedeli karo. So grammar is the only way that can direct you to the right path when it comes listening, speaking or any other one of the 4 major categories that I've been explaining to you.
therefore ma rabo inaan cashirka ku dhammaado insha allah waxaan isku dayi doonaa next stage inaan idiin soo next time inaan luuqadda sii kala sifayno laakiin waxaan rabaa hadda inaad bilowdaan dhegaysiga in aad kala fahantaan dhegaysiga speakingka oo that is hadalka readingka iyo writingka intaas markaad kala fahantid waxaa kuu fududaanayo which one you should start first and which one you should do next way kuu fududaanaysaa marka insha allah waxaa noogu xigi doono listeningka sidaad u improve garayn doontid iyo qaabka aad u bilaabi doontid hadduu ilaahay ka raali noqdo intii ka horeysa waxaan idin leeyahay dabcan dee waajibkiinaad garanaysaan haddaan idiin soo diyaariyey barnaamijka cashirka and then for you your duty is to give me a subscribe like share and comment as well and you're gonna share with me whatever and where we went wrong okay therefore we're going to speak in English sometimes to make sure that everybody understands the language as it is instructed as it is needed in the system and thank you very much guys inshallah tomorrow or any other day that I'm planning to post my second video that I'm going to speak in English and I'm sure 100% you're going to gain a lot from it so inshallah waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo iyo aqrin wanaagsan noqo bartaha maantay waxbartaha maanta waa hogaamiyaha berri so inshallah make sure you listen make sure you speak as much as you can make sure you read to the extent that you get tired make sure you start writing such that because they said you cannot be a writer if you're not a reader so guys next time inshallah goodbye